بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal aad baan idin salaamaya dhamaantiin meel kasta aad joogtaan. soo dhawaada muuqaalka si shargalay meel dheer ka tuura. waan idin tuura goonaya caawa insha Allah. saddex qodob ayaan ka hadli doonaa. arinta koowaad, gabadha lagu dilay Qorlugud ciidamadii uu watay ina si arag weerarkii ay ku ekeeyeen guriga ay degan tahay gabadh Dhulbahanta oo iyaga dhaxdin u ahayd oo dhaxday iyaga. qodobka way ka daba geenaya insha Allah. qodobka labaad, jabhada ay kaga dhawaaqeen qoryaha Boorsiya magaalada duleedka Boorama taar wax baan ka wada doonaa insha Allah. jabhadaasi waxa ka jira iyo halka ay ku dambeyn doonto. qodobka ugu dambeeyo xog fiican baan idinka hay Itoobiya xaalkeeda iyo Itoobiya burbur qarka u saaran. marka si shargalay muuqaalkan meel dheer ka tuura. ugu horeyn, habar jeclo waxay xalay suuqa gashatay media laba nin Dhulbahanta baa dil ma xuma. dilku waa naga dhaxeeyay, annana waa dilay, iyagana waa gaatabaan ugu ma. laakiin markii ugu horeysay ee taariikhda dil aan dhicin yelin aysan lahayn in media soo gashay warbaahinta. dumarkii qurbo joogta ahaa qurbo joog badan ma lahayn sidoo kuwa ay u yihiin hal irmaan oo ay qurbaha ay dal ku ruunay halkaas waxa weeye uga buuxaan iyaga ma xoogaaga yar ee qurbaha kaga daadsan waliba meesha la dhana bay lacag rabeen kaga cunaan oo ay dhahan waxbaan dilay labada nin maalinta dhow doon arrintii waa ka daba tagay waxba kama jiraan. waxay jireen absolutely ma jirto. warka waa baahinay warka markaan fashirinay inaan waxba ka jirin oo hablihii qurbo joogtii iyo islaamii waxa weeye dal ku lacag laga qaadan jiray ay warkoodii ay ogaadeen inay fashil tahay. maxaa dhacay maanta? arrin gudnimo leh baa dhacday maanta. taariikhda Soomaaliya markii ugu horeysay gudnimada maanta ay dhacday waa markii ugu horeysay taariikhda rag la dilay halkii rag loogu argudi lahaa gabadh loogu arguday. isaaq bay ka dhacday idoor baana sameeyay ciidan uu wato afhayeenkii habar jeclo ama waxa uu yaqaana SSP suug iyo saanad bilaasha ina si arag ciidan uu wato ayaa maanta waxay weerar ku qaadeen oo ay ku ekeeyeen guri ay degan tahay gabadh Dhulbahanta. gabadha Dhulbahanta magaceeda waxa la yiraahdaa Xaawo Cabdillaahi Xaaji Maxamuud aw Cali. waa gabadh Dhulbahanta oo iyaga u dhaxday. waxay u dhaxday nin Sulamadooba oo habar jeclaa 5 caruur ay u dhashay. dadku waa kala guursadaan oo reer walba wax meel walba muushuwe xaggaba waa jooga xaggana waa jooga. laakiin taariikhda markii ugu horeysay ina si arag suuq qurbo joogtii iyo hadii la kuurayay habar jeclada xoogaaga qurbaha jooga dhaqaale uga soo urursado weerar bay ku qaadeen gabadhi yaway isagoo ciidan wata rag iyo dumar bale. gabadhi waa dooxeen midida la geliyay sakiinta timajiidka gabadhiyada dhaawaca oo nafla caariya ayay loola cararay hadii la ku isbitaalka Burco. hadda ma ogtahay in gumeedkii qabay waa jooga magaalada kama dheedeen. hadda ma ogtahay taariikhda waa markii ugu horeysay Soomaaliya. hadda Soomaaliya dhageysta war raggu waa isdilaan, raggu waa kala aargorstaan, laakiin gabadh rag loogu aarguday taariikhda way. waxa idin sheegaya ragga u dhigmaan waa sax way. waa maanta waxa way futo jecla cadeysay marxaati ma doonta way. weerarka marka ina si arag gabadha ku qaaday waa wax official ana xaqiijiyay gabadhana isbitaal baa in lagu aargudo in ragaaga loogu aargudo ha taageero gunigu waa ka soo dhamaan laadey dhadigii isaaq waxa la futo halasha iyo hadana waxba tirin habraawali baa leh dhadigii isaaq baad ka soo dhamaan laadeen. maxaad iska dhacisaan? anagu dawlad baan nahay calan leh isaaqana hadii la kuwa wali taariikhan la Soomaali dadku way yaqaanaan waligeena guweyn jirnay adeer taariikhan ku dhigna waa taariikh Soomaali oo dhan baa og. annaga marka ha nagu soo hadal qabsanina tolow anagu waxa weey inay midowdaan oo waxa weey gudnimadaas ka dulqaadaan ma idinku taageertaan. annaga ha nagu soo hadal qabsanina. taasna waa qodob weey. taliyii watay hadda ka jabhad Suudaan wabar wadan jiray baa waxa laga sheegay waxa taliyii watay baa mas baa cunay mas. waa taliyii dhama TV marka waxa soo taagan huna taliyii mas cunay TV la soo taagan.
hadda waxaan leeyahay kuwa jabadaha ku dhawaaqay 26 iyo kuwii ku horeeyay kuwa sawirada soo galay waa bal masaska iska ilaalay sawirano bal masaska iska ilaalay waliga ma arin jabhado le masbay qoray intaasna waa intaas u dhaafi maayo waxaan ku